ku meel gaarka ah ee Jubbaland sidoo kale ku dhawaaqi doona inuu aqoonsanayo doorashadii 25 November ka dhacday magaalada Kismaayo. Imaaraadka Carabta ayaa arrintan ka shaqeynaya sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud cadaadis ku saaraya inuu Kismaayo tago sidoo kalena uu aqoonsado doorashada Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Xasan Sheekh Maxamuud oo markani dhabarka ka toogtay ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre xilka ayaa laga qaadi doonaa toddobaadyada nagu soo aadan. Xasan iyo Axmed Madoobe haddii ay heshiiyeen Axmed Madoobe waxa uu ku xidhayaa shuruudo adag oo ay ka mid yihiin in Xamse Cabdi Barre meesha uu ka baxo oo xilka qaadis lagu sameeyo isla markaana shakhsi kale la keeno oo ku habboon xilka ra'iisul wasaarenimo. Dhammaan saaxiibadii mucaaradka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markana isma hayaan oo meel cilaa ayuu kaga dhaqaaqay. maxaa socdoodan ogeyn berri oo sabti ah nolosha samata bixinta Soomaaliyeed waxay u ballansan yihiin banaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyana waxay ku hanjabtay in mucaaradku aysan wax uba ku dhex wadan karin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. sidoo kale ciidamo aad u tiro badan ayaa lagu wareejiyay guryaha ay mucaaradka ka degan yihiin magaalada Muqdisho. madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed waa uu hanjabay isagana waxa uu sheegay inuu kaga dhabayn doono isla markaana marnaba uusan joojin doonin dibadbaxyada ay markaas mucaaradku iclaamiyeen. wararkii ugu dambeeyay ayaan muuqaalkan ku eegi doonaa saaxiibayaal. soo dhawaada hadday tahay markii ku horeysay oo halkan naga daawanaysaan nagu soo biiro oo ka mid noqda saaxiibada halkan hore noola joogay. haddii aad hore noola joogtay muuqaalka noo like garee siina share garee oo la wadaag saaxiibada si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan ay ku baahanayeen inay soo gaadhaan. aad ayaa u mahadsantihiin. waayahay aynu ku bilownaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa si rasmi ah markani uga heshiiyay khilaafkii inta muddadahaba u soo dhaxaysay. Imaaraadka Carabta ayaa dadaal badan ku bixiyay in dhinacyadu ay heshiiyaan sidoo kalena waxa la isku haya markaas la iska iloobo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan gaaray dalka Qatar. Imaaraadka Carabtu waxa ay u sheegeen inuu ku qasban yahay in Axmed Madoobe uu la heshiiyo. sidoo kale waxa ay u sheegeen in dhan walba ay ka taageeri doonaan xataa haddii uu baahan yahay doorasho qof iyo cod ah iyo in mar kale isaga loo doorto madaxweynaha dalka hogaamin doona. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo dantiisa gaarka ka dhex arka markaasi mowduucaasi loo soo jeediyay waxa uu aqbalay in uu aqoonsanayo doorashadii 25 November 2024 magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland ka dhacday. intaasi wixii ka dambeeyay madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jira xiriir u dhaxeeya oo khadka telefoonka sidoo kale dhamaadka bishani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku wajahan yahay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka halkaasi waxa lagu wadaa in si toos ah uga dhawaaqi doono inuu aqoonsan yahay doorashadii 25 November 2024 Kismaayo ka dhacday inuu aqoonsan yahay sidoo kale in uu qirayo in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam sidoo kalena doorashadii ka dhacday Kismaayo uu ku tilmaamayo inay mid xor iyo xalaal ah. Xasan Sheekh Maxamuud wax walba uu qabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si kima gudahood ayuu isku bedelay. waxyaabaha la yaab kale ayaa daawadayaal waxay yihiin saaxiibadii Xasan Sheekh Maxamuud kula midoobay mucaaradnimada iyo inay ka soo horjeestaan Axmed Madoobe oo markaasi uu ka yahay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre maanta meel cidlaha ayuu uga dhaqaaqay. weji kama yaala deegaan doorashadiisa ahayd ma tagi kara Garowe iyo Kismaayo midnaba. si weyn ayuu markaasi uga hor imaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu bilaabay isagana olole ka dhana taas oo rabo in qalalaase iyo dagaal uu ka bilaabo magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah golihiisa wasiirada wuxuu amar ku siiyay in mucaaradka aysan wax uba ku dhex wadan karin magaalada Muqdisho. sidoo kalena waxa uu sheegay in shakhsiga mucaarada ee lagu arko baabuurta dagaalka iyo sidoo kale qoryaha markaasi boobayaasha in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. ciidamadana markaasi amar ay u haystaan inay qabtaan xakameeyaan.
khilaaf culus ayaa ka taagan magaalada muqdisho oo u dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale villa Soomaaliya madaxweynaha hore Sheekh Shariif waxa uu ku hanjabay in berri oo sabti ah banaanbaxyo waaweyn ay ka dhigi doonaan magaalada muqdisho qaybo ka mid ah gaar ahaan Siinay iyo sidoo kale aaga kale oo markaasi magacyadooda aysan sheegin waxa ay ku tilmaameen mudaharaadkan inuu noqon doono mid si nabad ah ku dhaca laakiin taasi bedelkeeda villa Soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabooyin culus oo laga hortagayo banaanbaxa mucaaradku ay iclaamiyeen maalin ka hor dagaal culus oo ka dhacay aaga Wardhiigley oo u dhaxeeya ciidanka booliiska iyo sidoo kale istaafyada markaasi madaxdani mucaaradka waxa ku dhintay mid ka mid ah ilaalada Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare hore Allah u naxariiste hadaba waxa la leeyahay mucaaradka markan seefta ay galka kala baxeen waxa ayna rabaan ayaa la leeyahay in afgambi ay ku sameeyaan villa Soomaaliya xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana shirar kala duwan ayaa ilaa maanta aysan u kala kicin Xamse Cabdi Barre waxa uu leeyahay waa in gacan bir ah lagu qabto dhammaan mucaaradka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu aaminsan yahay in Xamse Cabdi Barre khilaafkan uu horinayo waxa uuna si weyn uga biidiiday Xamse heshiiska dhexmaray Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud marnaba ma uusan filaynin oo waaga ayaa ku bariyay marnaba ma ahayn mid uu ku fikirayay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la heshiin doono Axmed Madoobe tan ayaa ka dhigan in isagana gambad gaaban loogu fadhiyo sidoo kalena laga dalbanayo in isaga meesha la dhaafiyo shakhsi kalena meesha la keeno hadaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shuruudaha markan uu ku xidhayo maadaama isagu ay dani wado imaaraadka carabtana ay aad ugu dadaalayaan inuu Kismaayo tago doorashadii Jubbaland dhawaan ka dhacday oo aqoonsado Axmed Madoobe ay laabta isgaliyaan oo ay isgacan saaraan waxay ka dhigan tahay jabka iyo dhabar jabka loo geystay xubnihii sida weyn ula mucaaradayay Axmed Madoobe waxa koow ka ah wasiirka amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre qaar ka mid ah mas'uuliyiin dhawaan loo soo diray gobolka Gado oo loo sheegay in maamul cusub halkaasi ay ka sameyn doonaan waxa kale oo ka mid ah Cabdirashiid Janan oo laga dhigay taliyaha nabad sugidda ee gobolkaasi Gado hadaba shakhsiyaadkaasi maanta farta ay dhaxda ka qaniinsan yihiin ma jirto wax Jubbaland cusub iyo maamul ka madax banaan Axmed Madoobe oo laga dhisay gobolkaasi wax walba oo la filayay dhanka kale ay isku gadeen Xasan iyo Axmed Madoobe waa ay heshiiyeen Xamse Cabdi Barre xilka qaadis ayaa lagu sameeyay toddobaadyada soo socda berri oo sabti ah mudaharaadyo waaweyn ayaa ka dhici doona gudaha magaalada Muqdisho dagaal culus ayaa laga cabsi qabaa dadka shacabka ah ee magaalada Muqdisho ku dhaqan xaafadaha la iclaamiyay waa ay ka qaxayaan caawa oo berri waxa laga cabsi qabaa in madaafiic waaweyn la isku adeegsado ciidamada dawladda jid walba caawa waa lagu goynayaa Sheekh Shariif madaxweynaha horena waxa uu wali ku taagan yahay in uusan u joojin doonin wax walba iyo isuristaag kasta oo ciidamada dawladdu ay ku sameeyaan hub kasta oo markaas ay u adeegsadaan diyaaradaha hub culus sida ayaa la sheegay in garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ay maanta ka soo degeen lama garanayo diyaaradahaasi meesha ay hubka u sidaan iyo waliba halka ay ka imaadeen madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dalka Mareykanka ayuu ku maqan yahay oo dalka ma joogo waxaana la filayaa in toddobaadkan uu dib ugu soo laabto isaga oo soo mari doona dhanka Abu Dhabi ee isu tagga imaaraadka carabta halkaasi waxa uu kulamo kula soo yeelan doonaa mas'uuliyiin ee ka tirsan maamulkaasi Abu Dhabi waxaana markaasi uu u soo jeesan doonaa dhankaasi magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland Axmed Madoobe ay halkaasi ku wada kulmi doonaan wararka kale ee soo baxay daawadayaal waxa ay sheegayaan in Saciid Cabdullaahi Dani laftigiisa laga yaabo inuu u imaado magaalada Kismaayo oo halkaasi ay ku wada kulmaan Xasan Sheekh Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe hadaba daawadayaal iyada oo doorasho guud dalku u dareeri doona dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna ay xaaladdu ku cakiran tahay dadkana in badan oo ugu sheekeynaya in doorasho qof iyo cod ah dalku uu aadi doono maanta rajadaasi ma muuqato laakiin rajo kale ayaa markaasi u muuqata oo markaas imaaraadka carabtu ay ka shaqeynayaan sidoo kalena ay u sheegaan in dhaqaale badan ay ku bixinayaan doorashadeesa
qaabkii doorashada ugu soo bixi lahaa sida ay u hirgelayso doorasho qof iyo cod ah waxa ayna u tilmaameen oo geesta kale ay ka tuseen axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi deni inay yihiin labada hogaamiye ee markaasi soo saari kara haddii uu la heshiiyana uu ku guulaysan karo wax walba oo riyooyinkiisa ama hadafkiisa qayb ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba waxaa la leeyahay dhammaan xildhibaanada mucaaradka ah la safan dhanka axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi deni waxa ay markani taageeri doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddii heshiiskani uu dhaco islamarkaana laga run sheego islamarkaana kismaayo laskoogu imaado dhammaan madaxda mucaaradka ahaa ee la safnayd dhinacyada puntland iyo jubbaland waxay garab istaag u muujin doonaan xasan sheekh maxamuud haddii teendhadii afisyooni lagu laabanayo iyo haddii doorasho qof iyo cod ah la aadi doono waxaa go'aamin doona ayaa la leeyahay labada maamul goboleed ee jubbaland iyo sidoo kale puntland waa labada tiir ee ugu waaweyn marka la fiiriyo dhammaan maamul goboleedyada kale ee dalka imaaraadka carabtu gees kale ayay wax ka tuseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasoo ugu dambayn ay ku qasbeen inuu ku qasban yahay inuu kismaayo tago sidoo kale inuu ku qasban yahay inuu garawa tago isla markaana raggaasi uu la heshiiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa la sheegay isaga dhaqdhaqaaqyo kale inuu ka bilaabay markii uu ogaaday heshiiska dhex maray axmed madoobe iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud goor hore buu sii ogaaday in isaga meesha aysan waxba u oolin inkasta oo wax walba ay dhici karaan isla markaana isaga xilkiisa uu sii joogi karo balse waxa uu noqon doonaa mid magac uu yeelahaa isla markaana wax saamayn ah aan ku lahayn siyaasadda dalka 6 bilood oo lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre saamayn togan kuma lahayn siyaasadda dalka ee markaasi wax lagu jaangooyo iyada oo dhowaan loo xilsaaray gobolka gada iyo maamul cusub oo xasan sheekh maxamuud uu rabay in halkaasi uu ka yaqyeelo haddaba madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale xamse cabdi barre waa isku khilaafeen nooca markaasi doorasho ay ka dhici doonta ee gobolkaas gado iyo shakhsiga ku habboon ee madaxweyne looga dhigi doono gobolkaas iyo weliba haybta uu ka soo jeedi doono intaasi wixii ka dambeeyey galkaasi jubbaland waa laga wareejiyey waxaana lagu wareejiyey rag kale haddaba isku soo duubduub daawadayaal dhammaan wixii lagu rajo weynaa wax walbo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku marin habaabiyo siyaasiyiintii iyo madaxdii isaga markaasi la safnayd maanta waa uu oga baxay waxayna u muuqdaan kuwo niyad jabsan isla markaana isku diray deegaanadoodii iyo halkii laga soo doortay sidoo kalena aan maanta haynin xilkii markaasi ay ka doorbideen iyo hadafkii ay lahaayeen oo markaasi gebi ahaan baa noqday mid dhalanteeda haddaba daawadayaal xaaladda soomaaliya waa ay cakiran tahay wax walba ayaa la filan karaa wax walba ayaa ka dhici kara magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal daawashada muuqaalka haddii aad halka nala soo gaadhay ku mahadsanid muuqaalka noo like garaya siina sheer garaya oo la wadaaga saaxiibadeen wixii ka soo